hogaamiyaasha xisbiyada mucaaradka ee Soomaaliland u codiyay wadani Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi Cabdiraxmaan Cirre iyo injineer Faysal Cali Waraabe ay wehelinayeen saraakiil sarsare oo ka tirsan xisbigaas oo kulan saacada qaatay xarunta xisbiga u cod ku leeyahay magaalada Hargeysa ayaa kulankaas oo warbaahinta dibadjoog ka ahayd markuu soo dhamaaday waxa warbaahinta la hadlay gudoomiyaasha xisbiyadaasi iyagoona sheegay wajigii saddexaad ee shirka wada hadalka ee lagaga hadlayay khilaafka siyaasadeed ee ka dhashay muddo kordhinta ay golaha guurtidu u sameeyeen xukuumadda iyo golaha wakiilada ay xukuumadda Soomaaliland ay ka cagajiday inuu socday wada hadal gogol madaxweynuhu fidiyay oo laga wada hadlayay khilaafkii ka dhashay go'aankii golaha guurtidu gaaray ee ahaa muddo kordhinta aan la isla ogolayn anaga wax shuruudo ku xidhin xisbiga wadani wuxuu ogolaaday inuu gogasha yimaado gogashaas waxa ay bilaabantay 20kii bisha May wax natiijo ka dhashay kulankaasi muu jirin laakiin anagoo eegayna danta Soomaaliland iyo badbaadada Soomaaliland iyo in heshiis dhaco waxaanu siinay fursad xukuumadda iyo xisbiga kulmiyaba waxaanu isla qaadanay in xal siyaasi ah sida ka dhageysanayseen waxaanu ku soo noqonay sabtidii xal siyaasi la raadiyo oo ku saabsan si loo xalin lahaa khilaafkaas sabtidii baanu ku soo noqonay waxa la kamu iman dhinaca xukuumadda iyo dhinaca xisbiga kulmiye waxaana u ekaydun maalintii gogasha la dhigayay inay gogasha laabeen sababtoo ah gogolna waanu dhignay bay yiraahdeen go'aanka khilaafka dhaliyayna waxay dhahan waa lama taabtaan waxaan ku kala tagnay inaanu maalin kala siino sabtidii oo Isniinta la isku soo noqdo hase yeeshee madaxweyne ku-xigeenka oo dhexdhexaadinaya saddexda xisbi qaran oo hawlna ku jira wuxuu naga codsaday axsaabta mucaaradka in maalin dheeraad la siiyo oo kulankii maanta dib loo dhigo berrina la siiyo markaan ka doodnay dood dheer si dimuqraadi ah xisbiga wadani iyo labada xisbi mucaaradkiiba waxaanu qaadanay anagoo ku xurmaynayna madaxweyne ku-xigeenka hawsha uu ku jiro anagoo ducaynayna natiijo keeno wax badan laakiin ka filaynay inaanu maalintaana siino waxaan u sheegaynaa anagu 26 Juun haday gaadho inagoo wax isla gaarin dawladda ma ixtiraam guurta waxay kordhisay ma ixtiraamna waxaan iman doontaa sidaanay Axmed ba ku tashanay berigii in dawlad aanu shir inta qaban wada qaran sameeyno dawlad kala sameeydo ummadda ogashay oo doorasho inoo qabato dadka doorashada socon ma bal dadka waxaan weydiinaynaa 22 bilood oo laba doorasho inoo yaalaan maxaa la qabanaya waa dad laba meedu yaalaan soo mid aad isla aasama dan Soomaaliland lama wado waxa kala doorataan shacabka reer Soomaaliland inaynu u danayno kooxo kiis daloolo wata iyo dalkeena ummadeena aynu u danayno danteenu kuma jirto doorashadaas inay 2017 baashi doonaya dhacdo 2015 in laba sano boodo danteena iyo danta ummadda kuma jirto waa inuu gees wada jeedsanaa